صوتك ضد بان كذا شيء من ضد كيسو أي تريد كم بدي ما أنا رندا في عن موقتك ما ضد كل جت تريد بدي حتى رواينا يدا ما قشوا أيضا هديت ضد كل جت تريد بدي ولا أبيز جرايو ما أنا ما ضد كاس ده رندا وش جا ورطان حنا fanaanka cabdi dhaanto oo caaway magaalada muqdisho ka badbaaday in ay disho Khadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiirka dhalinyarada iyo sportiska ee dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdi dhaanto qadka soo galay ama live-ka Facebook soo fariistay ayaa sheegay in Khadiija Maxamed Diiriye ay ka saartay shirkii ay dhalinyarada gobolka Banaadir loogu qabtay magaalada Muqdisho ama dhalinyarada qaranka loogu magacdaray ee dhawaan qabatay Khadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiirka dhalinyarada iyo sportiska dowladda federaalka Soomaaliya. balse daawadayaal intaana u gudagelin barnaamijkaas oo faahfaahsan halka aad nagala socotaan waa Masaal Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha hilmaamin si aad ula socoto muuqaalada aan baahino iyo barnaamijyadeena una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyada aan baahino. waad ku mahadsantahay daawashadaada iyo subscribe haddii aad saartaba channelka. kusoo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan iyo muuqaalka oo dhammaystiran ood kaga bagataan Masaal Media. Cabdi dhaanto oo soo galay barta Facebook live-ka ayaa sheegay in Khadiija Maxamed Diiriye ay ugu faantay qabiil isla markaana sheegay oo ku xaqiijiyay live-kiisa in Khadiija ay tiri meeshani ma ahan jigjiga ee la aad fankaaga jigjiga iyo dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo uu ka soo jeeda fanaanka Cabdi dhaanto oo ku sugan magaalada Muqdisho in ka badan dhowr iyo 10 sanadood halka wasiirada ay ka soo jeedo beelaha lahayb sooco isla markaana qabiilkeedu yahay oo uu lagu yeero 0.5ka. Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ah wasiir ka soo jeeda beelaha la sheego inay yihiin in laga tiro badan yahay isla markaana Soomaalida dhexdeeda ay ka tahay 0.5 halka Cabdi dhaantana uu yahay fanaan ka soo jeeda beesha ogaadeen ee dhulka maamulka Jubbaland iyo ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya oo uu asal ahaan ka soo jeedo fanaanka Cabdi dhaanto. Cabdi dhaanto oo live-ka ku sheegay iyo ku taagan tahay fankiisa isla markaana dhowr jeer oo hore ay isku taagtay. Cabdi dhaanto ayaa sidoo kale live-kiisa ku sheegay in markii uu bilowday showga ama maaragtay fanka ee dhalinyarada loo yeerayay isla markaana uu joogay gudoomiyaha kooxda Waaberi Nimcaan Hilaac oo sidoo kale ku casuumay goobta lagu qabanayo shirka ayaa Cabdi dhaanto uu sheegay in Khadiija Maxamed Diiriye soo istaagtay asagoo garab fadhiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla markaana ay sheegtay in liiska laga saaro Cabdi dhaanto isla markaana asaga ku amartay in uusan masraxa ka heesi karin haddii uu halkan ka heesana madaxa laga toogo doono sida uu sheegay Cabdi dhaanto oo la hadlayay taageerayaashiisa ku xiran bartiisa Facebook. Cabdi dhaanto ayaa sidoo kale sheegay inay arintani uu wax ka ogyahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maadaama isku beel ay yihiin asaga iyo qalbi dhagax isla markaana sidoo kale aysan marnaba arki karin qof ku beela ninka lagu magacaabo qalbi dhagax oo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u gacan galiyeen dalka Itoobiya isla markaana Cabdi dhaanto xilligii la xiray qalbi dhagax ama la dhiibay uu si aad u difaaciyay qadiyada qalbi dhagax oo fanaanku si aad u taageeray iyadoo ila leeyahay baa hawshoor waxay ka socotaa halkaas oo arintii qalbi dhagax ayaan dib u dhammaan oo dadka dib u xasuusiday isla markaana arintaasi waa mid dhabarjab ku ah dowladda uu hogaamiyo Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sidoo kale waxaa la leeyahay waxay ku amartay haddii uu heeso ama fanaankani uu heeso Nimcaan Hilaacna ay u sheegtay inaan marnaba la aqbali karin inuu meeshan ka heeso fanaan ku beela qalbi dhagax isla markaana haddii uu heeso iyadoo ay ku weynaydo xilkeeda wasiirnimo. Arrintan ayaa hadda waxay si aada cirka iskugu shareertay kadib markii fanaankaasi loo diiday inuu heeso waxaysana uu ka qaado goobtii lagu qabanayay shirka dhalinyarada qaranka ee gobolka Banaadir oo uu ka qayb galayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ay soo qabanqaabisay Khadiija Maxamed Diiriye. Haddaba waxaan idin maqashii doonaa live-kii uu ka hadlay fanaan Cabdi Dhaanto oo isla markaana kaga cabanaya wasiirada Khadiija Maxamed Diiriye iyo wixii dhaxmarayba waxaa noo faahfaahin doona fanaanka oo ka hadli doona live-kiisa. haddana waxaad ku soo dhawaataan codkaas, balse intaana u gudagelin haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha hilmaamin si aad ula socoto muuqaalada aan baahino. dad baan ka dhashay nin dadkiisu ay tirada ka badan yihiin runta fiican moogtahay ma ii dadka laga tirada badan yahay hadda rabaa in iyada maqasho ayada hadday tahay dadka laga tiri badan la abuse gareeyo ma anigu ma dadkaas de runtaan u sheegay habartan xune runtaan u sheegay Khadiija Diiriye way soo istaagtay markay soo istaagtay waxa tiri stage-ka iiga deg waxaan ku habar maxaa khaldan iiga deg way tiri stage-ka meesha iga khaldan habar waxaan fanaan Soomaaliyeed baan ahay meeshan taatana quraan laguma akhrinayo waa lagu heesiyaa ilaahay baa ay arko aan dhuuftada ahsan ku dhintay inaan been sheegin ilaahay baa ay arko oo makhraati ka waxaan ku habar macaanay de fanaan Soomaaliyeed baan ahay suugaan baan soo diyaarsaday waxaan rabaa suugaanteeda inaan uga qayb qaato barnaamijka si wax u jiraan xageed iga la dagaashantahay ka deg bay tiri meesha wal ilaahay baan ku dhaarshay ilaahay baan ku dhaarshay hadalkayga si fiican u wax Xasan Cali Khayre wuu fadhiyay dadkii isaga la socdo dhan way fadhiyeen meesha way wada joogeen ma garanaysaa koori say wax u jiraan Nimcaan Hilaac baan u yeedhay wuu joogay meesha wuu joogay ninkii meesha igu yeedhan asagu waanu yeedho waxaan ku rin Nimcaan oo kaalay maxaa khaldan walaalow islaanta xagee gala tahay anay la dagaashan tahay anay war hooya war xagee kala dagaashan tahay naagta waa bas la socoteeni xagee kala dagaashan tahay koori xagee kala dagaashan tahay ninkii yeedhay adigu wahaa ma xagee kala dagaashan tahay iyadoo wasla ogtiin maxaad si igu yeedhaysay habartan talaata wasiirada isku sheeg dayuusada oo maxaa la criticism ka sameynayso oo dadka kala takooraysa maxaa ka khaldan nin baa wuxuu soo qoray mar raba qabiilana sheegay hebelnimo saasay islaanta kula dagaashan tahay war waxaan ku dhaanu fanaan qaran may ma fahamti xamar haddii la yiraahdan aniga minority kamiya majority baan kahay runtan kuu sheegayaa intaasoo sanaan joogay ma fahmaysaa dagaal hadday noqotana cid dagaal wax iga qaadi karta ma lahan hadday dagaal iyo qoriga isdil noqotana dad ayada ka laan dheeraysan oo maxaa la daba jaxiyo gawaarida u saaran yihiin baa waxba iga tari waayay maxay iga taraysaa habartan xunta maxay iga tari ishak maxay Khadiija Diiriye hadda aniga taraysaa maxay sigala dagaal hadda hay soo wicina hadda ka hor SYL baad markii saan oo kale igu sameynaysa Khadiija Diiriye anagoo la ii yeedhay la casuumay ay hor istaagtay maxaan ka wataa ii sheeg waxaan ka wato waxba kama wataan uu makarafoonka inaan kula dhigo waan istaag waan maxaa la waan sameyn karay makarafoonka gacantan ku hay waan sameyn karay wax walba waan sameyn karay laakiin ixtiraam iyo inaan iyada meeshan kula doodo ya inaan iyada kula doodo ma rabin ma joogna xilligii madaxda qaranku ay fanaaniinta kala saarayeen ma joogna xilligaas waa laga soo gudbay wallaahi oo billaahi oo talaa inaan aanan ka gabanaynin maxaa la dhahayay kama gabanayo baan ku uri weligay Allahayna kamaanan gabanin day kama gabanin anigu wax runa kamaanan gabanin cabsina kuma dhalan anigu anoo la cabsina ma dhalan dad la cabsina kama dhalan anigu oo been oo maxaa la dhahayay la cabsiyo kama dhalan anigu hadday qabiil tagto weeyaan muuqaalka live-ka ee uu soo duubay fanaanka Cabdi Dhaanto ayuu oo aad u dheeraa waxaan ka soo jarnay qaybtan oo ugu muhiimsaneed hadalkiisa nuxurka warkiisuna uu ahaa inta maadaama fanaanku live-kiisu uu arrimo badan uga hadlay ma asaga iyo wasiirada oo isqabsaday
ayaan livekiisa intaan kasoo qaadnay maadaama nuxurka livekiisuba uu ahaa 3 daqiiqo inta kalena ay iska ahayd waxyaala asaga iyo wasiirada ka dhaxeeyay balse fanaanka ayaa ku soo koobay asaga iyo wasiirada wixii dhaxmaray intaan iyo masraxa markii uu soo istaagay isla markaana ay sidoo kale sheegtay in aysan meeshaan ahayn jigjiga fankiisana uu la aado dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo fanaankani ka soo jeedo waxay arintani waji gabax ku tahay wasiirada Khadiija Maxamed Diiri iyo guud ahaan dawladda uu hogaamiyo Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama fanaaniintii ay bilaabatay in lagu kala sooco qabiil haddaba waxaa magaalada Muqdisho muddo dheer ku xanuunsanaya fanaan qaran allaha caafimaad ha siiyay Cabdi Tahliil oo isku beel yihiin Khadiija Maxamed Diiriye isla markaana aysan waxba u qaban marka laga reebay inay mar inta u tagtay isku soo sawirtay fanaankaas qaran haddaba waxaa la socodsiin doonaa wixii ka soo kordha arrintaasi sidaa iyo nabadgelyo inta ay muuqaalkii ku ogyahay waa ku mahadsantahay daawashadaada